محمد دوفو ميل والبك مسؤوله ما انت أدا ما تربيود مودي ميل والبك مسؤوله أدا ما تربيود مودي munaasabadan oo si heer sare loo soo agaasimay ayaa ahayd mid xariga looga jiriyay ceelbiyo dhawaan laga qoday deegaanka Garsdheer ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana ka soo qayb galay xafladda kumanaan dad ah oo ka kala yimid magaalooyinka Muqdisho, Joor, Raagaceele iyo deegaano badan sida Bakajeex, Galeef, Warciise, Afar Ceeler Madow, Warkulan iyo deegaano kale oo badan. ceelka qarashka lagu qoday waxaa bixiyay muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Xaaji Maxamed Nuur Maxamed Xasan oo loo yaqaan Maxamed Doof kuna nool dalka Sacuudi Carabiya waxa uuna ugu talagalay waalidiintiisa inuu sadaqa u dhigo iyadoo dadka xafladda ka soo qayb galay wajiyadooda ay ka muuqatay farxad iyo reereyn ku aadan baahida ay u qabeen helidda ceelbiyood ayaa goobta waxay ku soo bandhigeen mid ka mid ah ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed. محمد حسين نور oo ah shakhsiga loo wakiishay qodista ceelka ayaa ka warbixiyay marxaladaha uu soo maray ceelka. isku darkiisa bilow iyo dhamaadkiisa waxay qaadatay 3 sanadood intaasna si nabadgelyo ku socotay waxa qabada ma aysan ka dhicin alxamdulillah ilaahay baa fududiyay oo biyana ka keenay inuu suurageliyay inuu xilligan uu soo gaaro furitaankiisa. haddii aan ka gudubno intaas waxa caqabadii la soo maray waxa kamid ah inta ay socotay ceelka hawshiisa ugu dambeyntii markii halka wuxuu ku baqay 220 mitir. dhinaca kale dadka deegaanka oo si weyn ugu mahadceliyay Maxamed Doof oo ah shakhsiga qoday ceelka ayaa waxay sheegeen in ay ka baxeen baahidii ay u qabeen in ay helaan biyo nadiifsan oo ay isticmaalaan. annaga maanta oo meesha nagu laayay 40 kiiloomitir biyo u soo jirna hadda ceel macaan weyla meesha nooga baqay ilaanku Xaaji Maxamed Doof aan ku mahadinayna ilaahay khayr Allah ka siiyo sadaqa jaariya Allah uga dhigo 39 sano ugu yaraan meeshaan kutub ku akhri jiraan meel hadda ii muuqata aan kutub ku akhri jiray kutubka xirtii waxa iga kala waday on meesha la yiraahdo webiga iyo bashaql biyo ma dhaxayn ninka ceelkan loo qoday oo noo habeeyay ilaa ajir gaar ha siiyo ajir gaar Allah siiyo ajirkiisa waa u socdaa hooyada oo waqfaan maqlay Allah ka thawaayo aayaday abtiyalka Allah ka thawaayo ceelka inta uu nool yahay oo nafu ku jirto asagana ajirkiisa u socaayo waa sadaqa jaariya waalidkii loo niyeeyay ajirkooda u socda. Maryam Nuur Maxamed Xasan oo la dhalatay shakhsiga ceelka qoday geedi xaamud jaras iyo cali nuur xasan cali qalac oo ka mid ah waxgaradka ka soo jeeda deegaanka oo ayagana goobta ka hadlay waxay sheegeen dadka deegaanka inay u tahay qodista ceelka farxad iyo guul u soo hoyatay. wiilkan walaalkay ceelkoo qodo biyaha macaan ilaahay ajir iyo xasanaad ilaahay ka sii waalidkiisna ilaahay sadaqa jaariya Allah ugu dhigo. ceel wanaagsan oo biyihiisa ma u zamzam yihiin ayaa inta nooga baqay wiilkaas jannada firdoos ilaa ka waraabiyo asagaan noo fuudiyay maxamed xuseen waa ful hawl fuliyo ahay 26 bishii 2020 waxaan xirg jarweynaa ceelka tuulada Garsdheer oo maalgeliyay Xaaji Maxamed Nuur Maxamed Xasan Baydheere magaciisa koonfurta ay tahay Maxamed Doof. ceelka hadii la yiraahdo 3 sano ayuu socdaa 1 sano 12 bilood iyo barna xoolaha iyo shacabka beeslaan ayaa lagu cabsiyaa la siinay wax lacag oo kharash laga qaaday ma jiraan bil kasta 2 fuusto shidaal ayuu isticmaali jirtay wuxuu ceelkan ku baqay 220 ayuu ku baqay oo biyo looga helay 120 ku fadhiisay biyo zaid ayuu leeyahay biyihiisu waa macyahay. ceelkan ayaa ceelkii ugu horeeyay taariikhda inta la og yahay ee laga hirgeliyay deegaanka Garsdheer ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana ceelkani ka faa'iideysan doona isla markaana biyo ka cabi doona kumanaan qoys oo ku nool deegaano badan oo ku hareeraysan deegaankan Garsdheer isla markaana xoolahooda ay biyo ka siin doonaan. dadka ayaa markii hore waxay la dhibanaayeen helidda biyo nadiif ah oo ay cabaan. Ibrahim Cali Nuur TV Universal Garsdheer gobolka Shabeellaha Dhexe.